بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزارده madaxda kala duwan ee runtii aadka u faraha badan ma aan wada magac dhabi karin barasaabka gobolka maayirka dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib walaalayaal waxaynu u taagannahay oo aynu taagannahay maanta wadada Beelgubadle Hargeysa qaybta gumburaha banka waxa aanu aad ugu faraxsannahay oo aanu halkan ku soo dhaweynaynaa iyadoo dhammaan ay marayaan madaxdii kala duwaneyd wadooyinku oo uu hogaaminayo wasiirka maareeyaha agaasimaha guud iyo dhammaan inta kale waxa kale aan aad u soo dhaweynaynaa wasiirka diinta iyo awqaafta iyo wasaaradda kaleba waxa aanu ku faraxsannahay in ay maanta iyadoo shaqadii iyo hawshii ay si fiican u socoto oo runtii markii horena ay nugula socdeen hawshana annagana ay nagu kormeerayaan inay arkaan sida ay hawshu u socoto alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxa warbixin yar oo kooban ka bixin doona injineerada wadada injineer kamid ah waa injineer Gaaxnuug inta imika inoo dhisantay inta imika inoo hadhay siyaabaha iyo waxyaabaha aynu intaynu qabsanay marka injineer Gaaxnuug baan ku soo dhaweynay si aan wadadan ka warbixiyo waxa inoo harsanaa 13 kiiloomitir iyo 500 oo u dhaxeeya Beelgubadle Riiga iyo Gumburaha imika waxaanu sameynay 7 kiiloomitir iyo 500 ayaanu sameynay intii rabadaanta inkastoo hadii alle muddo badan aanu fadhinay 7 kiiloomitir iyo 500 baanu sameynay hadda waxa noo harsan 6 kiiloomitir oo buura ayaa noo harsan wadadii Hargeysa Beelgubadle 6 kiiloomitir ayaa imika meel la gelayo oo amba roobka hadii daan la gelayo ka harsan intii kale waan la soo dhameystiray insha Allah waxaan rajaynayaa 6 kiiloomitirna in la dhameystiri doono عاصي وزير دي aan ka warbixino injineerka ka warbixiyay wadadan marxalado badan bay soo martay imika waxaan ugu harsan intii uu daray inagoo iskaashanayna anagu dawlad hoosaan imika tan socota waxaan ku darsanay $5,000 gaadiidka abshire shaqeynaya imika oo dawladda hoose ay bixisay shirkad ka bixisay kana ma harayso waan la daba taagnaa inta dhamaanayso wadada waxa kale oo aan saacada wasiir ka codsanaynaa 6 kiiloomitir waa 6 kiiloomitir bay ay la qiimeeyay 6 intaan soo sameynay iyo 6 kiiloomitir isku isku mid waxaan ka codsanaa saacada wasiir in 6 kiiloomitir aan daga tagin way gaadiidkii mar kasta way gelayaan in waxa la waxaas maalintii inta qaar ba ku daatay meesha marka codka u badan waxa weeyaan in aan 6 kiiloomitir aan daga tagin wasiir inkastoo ay rabadaantii iyo roobkii shaqadii aan qaban lahayn ay roobku naxayray marka taa codsiga insha Allah waxaan rajaynaynaa inay daga aqbali doonto waxaan leeyahay qoladii reer Beelgubadle amba gobolka Hawd ariga aynu ballan qaaday ay nagu soo qotay gudida wadadu waana laga sugayaa si degdeg ah in ariga loo keeno Jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka diinta iyo awqaafta agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka maareeyaha RDA agaasimayaashiisa gudoomiye ku-xigeenka hay'adda shaqaalaha barasaabka gobolka maayarka gudoomiyaha maamul wanaagga madaxda kale ee goobta joogta saraakiisha ciidamada assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa maanta sharaf noo ah inaynu nimaadno Hargeysa Beelgubadle wadada ah oo arkaysaan maanta in ay wadadu marayso bankii haddaynu dib ugu yar noqono wadadu waa 64 kiiloomitir 13 kiiloomitir waxa saaran caradii roogii ahaa daamurka koob iyo kontonka kale 45 baa carakaawada ay maanta saaran tahay 6 kiiloomitirna waa inoo dhiman tahay sida horeba loo sheegay waxaanu halkan aad ugu mahadnaqaynaa oo wadada inta ay xukuumadda Muuse Biixi ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ay jirtay aan ugu mahadnaqaynaa mar walba barbar taagan wasiirka wasaaradda horumarinta jidadka iyo gaadiidka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdilaahi Abokor maareeyihiisa RDA iyo agaasimaha guud iyo agaasimo waaxidiyada oo maanta halkan uu nagala joogo Siciid Nuur
waxaannu iyagana aad ugu mahadnaqaynaa labada injineer ee dabayshaa ay dhacaysa iyadoo rabadaan tahay aa arkaysaa inay mar walba heegan uga ahaayeen halkan waxaan u mahadnaqaynaa maayarka iyo badhasaabka gobolka iyo cid kasta oo nagala qayb qaadatay sidii waddadaa aynu u dhammaystiri lahayn mudane wasiir waad arkaysaa maanta dadka ku dhaqan deegaanka gobolka hawd iyo maroodijeex kal iyo laab bay kugu soo dhowaynayaan islaam walba iyo oday walba iyo cid deegaankiibana waa og tahay wixii aad nala qabatay waxaannu maanta halkan kuugu keennay inaad indhaindhayn ku samayso o aad aragto hawshu halkay marayso ka wadda ahaan guddideedu aad baannu kuu bogaadinaynaa sidaa horeba loo sheegay waxaa ka dhiman 6 kilomitir innaga guddida ayaa gaar ahaan iyo wasiirradiinna gaar uga wada hadli doona insha allah bismillaahi kariim annagoo doonayna in hawshaa ay sii socoto aynu dhammaystirno xaflad weynna aannu halkan ku qaban doonno insha allah bismillaahi kariim annagoo uga mahadnaqaynaa xukuumadda jamhuuriyadda somalilan oo madaxweyne muuse biixi cabdi uu ka yahay garwadeenka waddooyinka waddanka horumariso insha allah bismillaahi kariim ka guddi ahaan waxaannu ku leenahay ku soo dhowo gobolkaagii waa deegaankaagii waxaan kugu soo dhoweyn wax weyn baad nala qabatay intii waddadaasi ay socotay waa wasiirkii ugu qiimaha badnaa ee nala soo shaqeeyey ee intaa nala qabta waddadaa waxaa carrakaawo la dhigay oo dhan waxaa nagala qayb qaatay intay xukuumadda muuse biixi jirtay wasiirka cabdilaahi abukor iyo agaasiyadiisa iyo shaqaale weynihiisa gaadiidka wada iyo macdaadka kala duwan aad iyo aad baanu u hambalyaynaynaa annakuna dee waxaannu nahay reer lagu yaqaano martisoorka iyo gobonnimada iyo soo dhoweynta oo waxaannu nahay degmadii laga xoreeyey waddanka sidii baanu maanta ugu taagannahay in waddanka horumarkiisa aanu ka qayb qaadanno aad iyo aad baanu wasiir kuu soo dhowaynaynaa aad iyo aad baanu gacmo furan kuugu soo dhowaynaynaa 6 kilomitirna waxaa ka codsanaynaa inaynu dhammaystirno gobonnimadii intaasaa ka hadhay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan idinku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waddadan balgubadle ama gobolka hawd waxay kaga duwantahay waddooyinka kale saddex arrimood bay kaga duwantahay waa kow waxay sumad iyadu u tahay waa waddadii halganka weeye waa hooyadii halgankay gelaysaa laba gobolkan hawd waxaa ka soo jeeda madaxweynaha qaranka muuse biixi cabdi waa gobolkii madaxweynaha weeye waxaad mooddaa inay ka duwantahay taasaa muhiimadda weyn loo siinayaa inay waddadan muhiimad weyn leeday siduu sheekh mubaarak sheegaya waa runtiisa hooyadu iyada cuntada waxaana filayaa inaanay ugu dambaynaynin laakiin maanta 6 kilomitirna inaynu dhammaystiri doonno insha allah biidnillah laamidan aynu saari doonno mahad gaarana madaxweyne soo jeedinaynaa oo in badan tii horena nagala shaqeeyey dawladdii hore tanna imika mar walba u taagan inuu waddada dhammaystirkeeda inuu dhammaystiro insha allah anu waxaan soo jeedinayaa uun hadalka ku dheeraan maayo mahadnaq oo ah rag fara badan markii ugu horreysay waxaa igu soo dhacay wasiirka oo sidaa la sheegaya in badan ka qayb qaatay waddadan iyo maareeyahaba labadooda waxaan kala siinayaa 2 shahaado isaga iyo maareeyaha waxaan isagana siin doonaa 2 ninoo meeshan runtii maayarka degmada balgubadle jiif caaqilka isagana ninkaana ha loo duceeyo aad buu uga qayb qaatay wax fara badan buu ka qabtay waddada waxa isaguna fidaaya oo waxaan isleedahay lacagtu malaha qolooyinkan kale arabka way abtiyaasha musaabakorku markaba way bixiyaano abshirna ha loo duceeyo abshirna hatta kilomitir dambe ayuu ku daray waxa iyagana jira labada inan ee sayidka joogay injineerada labaduba inaynu iyaguna ku thank you oo aynu iyaguna siino shahaadooyin marka intaas uma guddoonsiinayaa dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam runtii farxad bay tahay inaan markii labaad ku soo noqdo waddada balligubadle hargeysa oo runtii meel fiican maraysa haddana gebageba oo waqti ayba ka hadhay 6 kilomitir maalintii aynu halkaas isugu nimid waddadu waxaynu ka soo xafladeeda ku qabanay waxa ay balligubadle waxaynu ku ballanay waddada inaynu dhammaystirno waxaynu ku ballanay waddada inaynu gacmaha isqabsanno cid walba waxay kaga qayb galayso cid kasta waxay kaga hawlgalaysoba ay waddada diyaar noqotada ay tahay halbowle u tahay dhammaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland insha Allah ilaahay wuu inoo fududeeyay waan ku guulaysanay meel fiican baan maraynaa gaadiidkeennii iyo dhammaan shaqaalaheennii injineeradeennii iyo madaxdeennii maanta way naga halkaa gacmo haysay way dhammaan lahayd intaasi roobkii iyo raxmaadkii ilaahay baa ina habsaamiyey
oo waxaynu ka faa'iidaysanay xilligii bishii barakaysanay Ramadaan annada guddida wadada iyo dadweynaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sida la sheegay dadkii ugu horeeyay sheegay wadadan Beligubadle Hargeysa qaranka ahmiyad weyn bay u leedahay laba gobol wada isku xidhisa weeye dhulkan waa dhul hawda waa dhul runtii gaadiidku markay marayaan ay dhibaato badan kala kulmi jireen maantana waynu arkaynaa inta aynu sameynay siday dhibaato dadkii uga dulqaaday waynu arkaynaa 6 kiiloomitir ee dhiman marka la isku xidhana waxaynu arki doonaa isbedel weyn oo dhaqaale mid horumareed waayo horumarka wadada kama horeyso waxyaabo badan baynu berigii hore qaran ahaan awoodda saari jirnay MCH-da iyo laakiin imika waxaanu dib ku ogaanay wadada horumar ka horeeya ma jiro meeshu markay wado hesho noloshii kale oo dhan baa iskaabaysa insha Allah taala iyadoo laameeyna waynu arki doonaa dhawaan guddida wadada Beligubadle aad iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa waa nafurnimo weyn bay sameeyeen isku tashi weyn bay sameeyeen annagu runtii waa waajibaadkayga bay ka mid tahay wadooyin badan waddanka baan ku darsan wadadan ka shaqeynaya aad iyo aad baan runtii aan ugu bogaadinayaa hooyanahan abtibuuyi wasiirkan abtibuuyi labadaba ciidagala dhalay magacana waynu wada yeelay jirnay horta hanaga tagina abtigana nala qaata magaca ciidagala ma faa'iido kama soo gelo waa nooga yaacdo dhulka la difaacdeelay markan magacabeed ka soo galay abtibeen u wada nahay wasiirka waxaan ku dhaahdaa salaxdii Beligubadle markay ku yimaadaan Beligubadle la horeeya idinkaan idinka jecel waan ogay maalin dhaweytu yiri reer Beligubadle idinka wanaagsan sar weligii way naga wanaagsanay runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa wasiir Qabyo Tire oo isaguna runtii mas'uuliyadii naga riday oo wasiirka iyo maareeyaha iyo abshir ba abaalgud inuu inoo amray in wadada maanta aynu taagannahay la dhamaystiro hadii Ilaahay ka dhigo waxaynaan ilaawahayn Cabdulaahi Abakor iyo wuxuu maanta geliyay qaranka oo dhan haday wadooyinka oo dhan maanta ay ku jirto wadada Beligubadle iyo isku xidhaysa Hargeysa ilaa dhagax buur isku xidhaysa insha Allah hadii Ilaahay ka dhigo wuxuu geliyay baynaan ilaawahayn wasiir aad iyo aad baanu kaaga mahadnaqaynaa waxaynu kala u mahadnaqaynaa wasiirkeena diinta iyo awqaafta oo isaguna hariya habeen u heegana inuu wax ka qabto wadada iyo hawsheeda waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa Abshir Construction Company oo aan arkayo inuu yahay hormuudka wadada waxaan u mahadnaqayaa guddida wadada oo iyaguna markasta doonaya in ay ka muujiyaan gobolka horumarin hadda u dambeysay waxay nagala hadlayeen wadadii noo dhamaatay bal maayirka iyo gudoomiyuhu sidii loo dhirayn lahaa ee quruxda bilicda loo soo celin lahaa gobolka ayay nagala hadlayeen aad baan bulshada oo dhan ugu mahadnaqayaa haddaan intaa ka gudbo waxaan la yara kaftamayaa saaxiibkay Maxamed Aadan Qabo waxaan filayaa wasiirka iyo madaxweynaha wadada ana uga mas'uula shaqadeedana ana ku suntan shahaadooyin uu bixiyay Qabo ana marka mas'uul baa jira saaxiibkay ku oranayaayo wad baa laynoo kala keenay taasina kulli waa falaad ku maqan weeyo waa kafta weeye waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka diinta iyo awqaafta ayaan ku soo dhaweeyay runtii aan kala ilaaway aan magacaabi kareen shaqaalahaas u horeeyaan shaqaalaha runtii gaadiidkaas qiimaha badan inoo wada ka shaqeynayay maxaan ku wadada iyo hawsheeda oo maanta ku faraxsan mahadnaqana ka soo qayb galay dhammaantiin iyo dadweynaas goobjooga waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanta kadib walaalayaal wadooyinku waxa kamid nicmooyinka Ilaahay bixiyo ay wadooyin kamid yihiin oo jidka la bixiyo waa wax khayr badan weeye qof ka shaqeeyana waa ajri xasanaad buu ka leeyahay waxa uu noqonaysaa sadaqa jaariya waxaan oo laha wasiirka hawlaha ay horumarka wadooyinka iyo maareeyaysa agaasimis waxaan niyeysataan mar walba shaqada haysaan haday tahay mid bariga fog ceergaaba ah haday tahay kuwa dayactiraysaane gobolka Sool iyo gobolada kala duwan haday tahay dhammaantoodba ajar inuu idinku jiro horta dareensanaada naftiina inay u shaqeynaysan dareensanaada waxa kale dareensanaataan inaad fulinaysaan dhammaan yaani manifestadii ku jirtay xisbiga kulmiye maxaan ku raahday hawluhu qaban lahaa runtii buugiisa manifestada ku sajila oo Beligubadle ka mid tahay wadooyinkooda ka mid yihiin waxa kale oo ay ka mid tahay yaani maartay NDB2 oo soo diyaar gareeyay wasiir Qabyo Tire oo markaa ahaa wasiirka qorsheynta waxaana ku jirtay wadada Beligubadle wadooyin kale oo dhamiba haba hata priority la siiyay Beligubadle waxay ahayd in wadada Beligubadle la dhamaystiro runtii wadada ka hadlayna waa la dhamaystiraya waa basement kiun waxaan ku hadlaynaa waa jidcadaha ka muhiimsan wax kasta
jidcadaha maanta iyo wadada balgwadle oo maanta 7 sano socotay oo dawladii hore aan ka mid ahaa madaxweyne maxamed Silaayo ka mid ahaa oo uu bilaabay heerkeedii asharkeedana uu leeyahay runtiina uu noqday yani ninka ku suntan madaxda ah runtii annaguna aan dhaxalay mar dambe wadeeta madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo madaxda kale ee hogaaminayo ee uu igmaday ee ugu horeeyay wasiirka gaadiidku dhammaanba waxa la fulinayaa siyaasaddaas inoo taalay ee ahayd in jidka horumarino marta gaadiidka iyo horumarta jidka iyo gaadiidka waxaan leeyahay ilaahay ka idinka abaaliyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala yani idinku barakeeyo idinka iyo ubadkiina Allah idinku barakeeyo waqti ku bixisana ilaahay subxaanahu wa ta'aala ajri xasan idinka siiyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala idinku soo asturo oo ummadan iyo qarankan intii la idinku igmaday inuu ilaahay idin fududeeyo ee ilaahay idinka baryayaa wana maasantiin marka koobaad ilaah baa mahad leh marka xigana waxaanu u mahad celinaynaa guddida mashruucan inagala shaqaynaysa horena waanu sheegay iminkana waan ku celinayaa xilka iyo waajibaadka wadada wax iska leh dawladda waxaad nagu kordhisaan waa taageero waajibaadkayga baad qayb ka qaadanaysaan marka waxaan jeclahay inaan mar labaad iyo mar saddexaadba aan idiin mahad celiyo ninkaan ummadiisa u mahadnaqina ilaahay uma mahadnaqo wana mahadnaq intaasaan jeclayna marka hore aan idiin mahad celiyo marka labaad waxaan mahadaan la soo koobi karaa halkaan uga jeedinayaa shaqaale weynaha hay'adda horumarinta wadooyinka hadday noqoto darawaliinta maamulka iyo farsamayaqaanada injineeriska ay halkan jooga oo islaahay la'aantood maanta farxadda aynu isugu nimid suurtagal ma noqoteen iyaga farxadda inoo suurtageliyay ilaahay inaa waxaanu ka rajaynaynaa inuu miisaanka xasanaadka idinku daro annagana waadna xil furateene inuu ilaahay maalin san abaalkayga aad heshaan laakiin fulinta rasmiga ah waxaa la qolay farsamayaqaanada oo ugu horeyn injineerisku ay ku xigaan side engineersku ay ku xigaan darawaliintu ay ku xigaan operatorsku marka runtii dhammaantood waxay naga mudan yihiin inaanu mahad celino anagu mahadda ma lihin mahadda waxa iska leh shaqaalahayga leh waxaan jeclahay in halkan uu hibeeyo shahaado sharafkiina la siiyay anaga maareeyaha iyo mas'uuliyiinteeda waxaan u hibeynaynaa insha Allah haddii la ka dhigo shaqaale weynaha hay'adda horumarinta wadooyinka qodobka mahadnaqa markan ka gudbo qodobka labaad aan kulay dareemaya waxa ka soo bilaabmaa way dhamaadaan anu maanta hami labaad bay galay oo ah tan basementkii waynu sameynay formationkii iyo subgradekii iyo subbaseki baan sameynay imika waxay noo hadhay road basekii iyo weerinkii soo ah daamurkii hamigaygu wuxuu noqonayaa inaynu bal horta taana ka fikirno qorshaha inaynu gelino inaan hamigeenu noqonin inaynu dhisno road base iyo inaynu dhisno subbase iyo subgrade iyo formation sameynay laakiin hamigeenu inuu noqdo sidaan wadadaas u noqon lahayd wada rasmi ah oo dhameystiran wadada iyo faa'iidooyinka ay leedahay isu sheegi mayno horaa looga hadlay mid dhaqaalay leedahay mid deegaan bay leedahay maanta wadada halka la dhisaa waxay ilaalinaysaa biyaha waxay ilaalinaysaa biyaha soconayay waxay ilaalinaysaa deegaanka waxay dib u noolaynaysaa dhulkii dhintay sababta wadadan la maraya waxay ka kaxaysaa dhulka biyaha marka tama wadada dhinac la dhinsan dhinac ordo biyahaas way tagaan laakiin wadadan biyaha ka kaxaymaysa laakiin biyaha way qabanaysaa waxa kale sare u qaadaysaa noloshii bini'aadanka runtiina waxyaabaha imika aan jecelahay in halkan ka xuso shaqaalahayga meel kasta ka shaqeeyaan way ammaanaan waxaanu haynaa shaqaale muddo 5 sanadood sida haystay waxaan haysanaa muddada 5 sanadood waa aragnimo imika injineer gaxnuug oo kale inay yar buu ahaa maanta he's a senior engineer maanta waddo kasta u dhisi kara waxaan sheegay injineer gaxnuug shaqaalahaygu ma yaqaan nin kasta uu yaqaan design-ka la dhigaayo graderska waa yaqaan rollerka uu yaqaan marka waxaynu ka faa'iidnay waxa kamidaba aqoon baynu ka faa'iidnay experience baynu ka faa'iidnay tan waxaan jecelahay insha Allah haddii la ka dhigo inay noqoto waddo rooga aanay noqon wadada tarmac road tarmac inaan noqon laakiin tan la saaray asfaltka inay noqoto insha Allah haddii la ka dhigo waxaan doonaynaa guddidu inay maskaxda ku hayso shaqadeeda kama dhamaanin shaqadu way bilaabantay imka taa maskaxda in lagu hayo sababta waxaan doonaynaa wadadan inaan noqonin road base-ka iyo subgrade-ka iyo formation-ka inaan naga noqonay labada shay noo harsan ah road base-kii iyo qaybta sare weerinka inaad u diyaar garoodaan oo qoyska ugu badan ku baxayo marka insha Allah aad iyo aad bad maasantiin والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. اللهم اكفنا صيد ما كيف شئت انك على ما تشاء قدير اللهم اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير اللهم اجعل مشافاتك
وعافنا بمعافاتك وداونا بمداواتك بقدرتك وعظمتك وسلطانك يا الله الله إنك أقبله أنت أبوحا كنت لين لوبي ودام البلوني إلى سيلا إلى ونقبض المود البلوني تنا وكا قلب قلينا تنا قلبك وهيا سلام الله سبحان ربك